Assalaamu calaykum waraxmatullah dhammaan asxaabta nagu xiran maanta waxaan ka hadlaynaa 10 cashar oo ay tahay inaad nolosha ka baratid inta aadan gaarin da'da 30 sano dhalinyarinimadu waa waqtiga ugu wanaagsan ee soo martaa qof walba waa halka qof walba uu ka qaato mustaqbalkiisa haddii dhalinyarinimadu uu qofka habaabo nolosha ayaa ku adkaata inuu soo kabto sidaa darteed maanta waxaan kuu soo gudbinayaa 10 cashar oo ay tahay inaad nolosha ka baratid inta aadan gaarin da'da 30 sano ku soo dhawaada mawduuceena maanta casharka koowaad ka dhigo saaxiibo dadka dhanka wanaagsan wax ka fiiriya marka aad daayar tahay wax ugu badan ee aad samaysato waa saaxiibo si la mid ah dadka waqtiga ugu badan aad la qaadatidna waa saaxiibo haddaba ka dhigo asxaab qof ku fakara dhanka wanaagsan haddii aadan hadda samaysan waxaad dhexgeli doontaa dad noloshaada burburiya mana awoodi doontid inaad ka fogaatid da'da 30 sano kadib haddii aad u baahan tahay inaad duusho waa inaad la saaxiibtaa gariirka iyo shimbiraha ma ahan digaaga casharka labaad oo ay tahay nolosha inaad ka baratid waa inaad yeelataa kayd waxaad u baahan tahay kayd waxaad isweydiinaysaa waa maxay keedkaan u baahanahay keedka aad u baahan tahay waa inaad xog badan haysaa waa inaad akhrisaa buugaag badan waa inaad hadda maalgashataa maskaxdaada intaad da'yar tahay waa waqtiga ugu wanaagsan ee aad wax baran kartid ama wax badan aad ogaan kartid ugu yaraan waa inaad yeelataa caado wax aqris ugu yaraan waa inaad maalinkii 2 jeer ama 1 jeer aad wax aqrin kartaa taas ayaa kaa dhigi doonta inaad yeelatid kayd badan haddii aad u baahan tahay inaad nolosha horumar ka gaartid waa inaad samaysaa wax aysan samaynin dadka kale waa inaad ka duwan tahay dadka kale markaad raashin cuntid raashinka waxa uu ka soo muuqdaa jirkaaga haddii aad cunto raashin nafaqo leh waxa uu ka soo muuqdaa jirkaaga oo jirkaaga ayaa dhaldhalaalaya salamid ah waxa aad maanta akhris ayaa biri ka soo muuqan doona ama ka soo maaxan doona maskaxdaada social media waqtigaaga ku lumin kuma caawin doono mustaqbalka waxa oo mustaqbalka ku caawin doono waa waxa aad maanta akhrisay sidaa darteeda kayd badan oo wax akhris ah waa inaad yeelataa ama ugu yaraan aad samaysataa caado wax akhris casharka saddexaad balwadda kuma caawinayso markaad jirtid 20 sano wax badan ayaad tijaabinaysaa waxaa laga yaabaa inaad isku daydid inaad sigaar cabtid qaad cuntid iyo weliba inaad zina ku dhacdo allah ayaan ka magangalnay intaasba ka fogow noloshaada ha barin inta aad yar tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu badan ay isticmaalaan hadda waa balwadda loo yaqaan taabuu kaniiniyaal aan caafimaad ahaan loo cabin kuma caawin doonaan mustaqbalka waxaa laga yaabaa inaad hadda isticmaashid fadlan haddaad hadda isticmaashid hadda jooji waayo haddaad hadda joojin ma awoodi doontid 30 sano kadib inaad joojiso waxaa kaloo ka mid ah balwadaha aan wanaagsanayn beenta caajiska dadka oo la khiyaano jacaylka beenta dadka loo sheego intaasba waa caadooyin xunxun oo aan ku caawin doonin mustaqbalka haddaba jooji casharka afaraad shay walbo ha ballan qaadin waxaa laga yaabaa marka aad yar tahay inaad energy badan aad haysid aad aaminsan tahay inaad wax walba qaban kartid waxaa laga yaabaa in wax walbo lagu weydiiyo aad ballan qaadid laakiin aad gadaal ka qaban weysid haddii aad dhowr jeer shay aad ballan qaaday aad samayn weysid waxaa dadka agtooda ka noqonaysaa qof aan hadalkiisa lagu kalsoonaan karin oo aan ballan lahayn haddii dhowr jeer lagugu arko marka dambe cid ku aaminaysa ayaad weyn doontaa marka wixii aad awoodooda leedahay keliya ballanqaad oo waxaan awooddaada ahayn ha ballanqaadin casharka shanaad samayso budget ama miisaaniyad waxaan ognahay qofka markuu 20 jir yahay inaysan lacag saas u badan aysan soo gelin uu inta waalidkiisa uun siiyo ay soo galaan ama intuu asaga waalidkiisa uu ka codsado laakiin haddii aadan baran intaas yara ku soo gashay sida loo maareeyo hadda ma awoodi doontid 30 sano markaad gaartid ama 30 sano inaad markaad dhaaftid inaad lacagtaada maareyso askari Mareykan ayaa waxa uu yiri haddii aad u baahan tahay inaad dunida bedeshid ka bilow sariirtaada yacni waxa uu la jeedaa qofka marka uu subaxii soo kaco aan hagaajin sariirtiisa ayadoo kala tuuran isku qasan barkinta meel ku tuuran tahay go' meel ku tuuran yahay shukumaanka meel ku tuuran yahay ka soo kaca wax kale uu bedeli kara ma jiraan yacni marka waxa loo baahan yahay inta had yaroo ku soo gasho aad helaysid inaad ku barbaratid sida loo balaan gareeyo mase loo budget gareeyo mase miisaaniyad looga dhigo oo loo isticmaalo tusaalahaan inta yaroo maanta ku soo gasho xataa waqtiyada aad isticmaalaysid inaad samaysid sidoo kale wixii hadday bil ku soo galayaan bishii xilligay ku soo galayaan xilligay ka dhamaanayaan waa inaad ogtahay intaysan ku soo galin ka hor marka waxa ugu muhiimsan waxaa waa inaad hadda inta yaroo aad haysatid aad ku barbaratid si hadhow 30 sano marka aad gaartid aad u baangaleyn kartid ku waaweyn ee ku soo gali doona insha Allah casharka lixaad baro inaad wax meel dhigatid waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid aniga ma shaqeeyo dakhli ima soo galo waxa aan ku xisaabtamo bishii isoo gaara ma lahan sideen wax u dhigtaa waxaad ogaataa 95% dadka hadda dunida ku nool maanta
noloshooda way burburtaa haddii ay shaqada hadda hayaan ay ka tagaan ama laga soo ceyriyo. Sababtan waxay tahay inaysan lahayn kayd ama saving. Marka waxaad u baahan tahay inaad hadda baratid sida wax meel loo dhigto. Hadda aad baratid inta yar ee ku soo gasha inaad wax un meel ka dhigatid. Hadhow marka aad shaqo heshid ama aad qof ganacsato waaweyn ka aad noqotid, waxaad bilaabaysaa inaad wax meel dhigatid oo waxa hadda adaptive kula noqonayaan hadda aad la qabsanaysaa. Laakiin haddii aadan hadda baran, hadhowna ma maareyn kartid oo wax meel kama dhigan kartid, wax walba oo ku soo galo inaad isticmaashid ayay noqonaysaa. Marka waa inaad barataa sida saving loo sameeyo ama wax dakhliga ku soo gala wax un meel looga dhigto, ha yaraadaan ama ha badnaadaan. Casharka 7 dadka wax weydii. Xishood ama kibir ka dheeraaw si aad wax badan u ogaatid. Waa inaad dadka wax weydiisaa, waayo waxay kuu noqonaysaa faa'iido hadhow dambe ku anfacda. Ceeb maahan inaad dadka wax weydiisid. Marka aan yareen waxaan xasuustaa macalinka Carabiga noo dhigi jiray. Dad baa jira kalaaska macallin ay su'aal weydiiyaan ka xishooda. Markaas Soomaali walba wuxuu noo soo qaadan jiray oraahda Carabiga oo dhehayso المستحي والمتكبر لا يتعلمان أبدا. يعني waxa loola jeedaa ninka kibirka badan oo isla weynida badan iyo ninka xishoodka badan weligood wax ma bartaan. Haddii aad wax dadka weydiiso waxa ku kordhaya aqoontaada, sidaa darteeda waa inaad dadka wax weydiisaa inta aad yar tahay. Ha isku dayin inaad noloshaada ka dhaadhiciso inaad wax walba taqaanid. Xitaa qofka haddii uu kuu sheegayo waxa aad taqaanid waa inaad ka dhagaysataa oo ixtiraam u muujisaa. waayo waxaa laga yaabaa haddaad hadda ku adkayso aad dhahdo waxaan horaa u maqlay, wuxuu isleeyahay ninkan maalin dhaweedu ku dhahay waxaan horeeyaa u maqlay, waxba ha u sheegin xataa wixii xog ahaa oo fiicnaa oo ahayd in lagula wadaago xataa waa uu kaa cishanaya. Marka dadku waa inaad wax weydiisid, ceeb ma ahan oo aad dadka wax ka faa'iidid, waa wax ugu muhiimsan oo horumarka lagu gaaro. Casharka 8 baro sida dhibaatooyinka loo xalliyo. Haddaanu dhalinyaranahay waxaa jiro dhibaatooyin badan oo nagu hareysan oo u baahan inay dhalinyaradu xalliyaan. Marka waa inaad isku dayi kartaa inaad dhibaato hadda jirta xallin kartid oo bulshada wax unaad ku soo kordhin kartid. Waxaa laga yaabaa adigoo wadada maraa inaad aragtid dhalinyaro asaagaaga ah mase dhalinyaro xoogaa ka yaryar oo qof ka weyn tuuriyaynayo. Waa inaad dhahdaa dhibaato waayo waxaan joojiya, qofkan waa idinka weyn yahay, sabab aad u tuuriyaysaan oo dhexdiina taala ma lahan. Si la mid ah dhalinyarada agtooda inta badan waa la isku dagaalaa. Adigoo asxaab dhalinyaro asxaabtaada la socdo waxaa laga yaabaa 2 ka mid ah inay isdagaalaan. Waa inaad dhexdooda geli kartaa, aad xallin kartaa problemka dhexdooda yaalo. Haddii 2 qof oo walaalo isku dhacsan aad aragto waa inaad xallisaa. Haddii 2 qof oo xiriir jacayl ka dhaxeeyo isdagaal haddii aad aragto waa inaad xallin kartaa. Yacni dhib walba waa inaad isku daydaa adigoo yar inaad baratid sida loo xalliyo. Haddii aad hadda baratid waxaa kuu fududaan doonta hadhow markaad weynaatid dhibaato intaan ka weyn inaad xallisid oo bulshada wax badan aad u soo kordhisid. Marka casharka 8 oo ay tahay nolosha inaad ka baratid inta aadan garin 30 sano waa inaad barataa sida dhibaatooyinka loo xalliyo ama problemka bulshada dhexdeeda ka jiro qayb loo qaato sidii loo xallin lahaa. Casharka 9 iska daa degdega. Marka aan yarnahay ama aan ku jirno safarka dhalinyarnimada waxaan ku degdegnaa wax walbo sida hadalka, go'aanka, jawaabta degdega anagoo isku haysanay inaan nahay kuwa ugu saxan. Soomaalidu waxay ku mahamaadaa 20 jir intuu geed ka boodo ayuu talana ka boodaa. Yacni ka fiirsi ma lahan wax walbo ay sameynayaan. waxaad arkaysaa 2 qof oo dhalinyaro oo xiriir ka dhaxeeyo oo la dartiisa isku jecel oo lamaane ah oo muddo soo wada socday laakiin marka dambe isku dagaalo wax basiid oo midkooda uu go'aan ku degdegay ama uu jawaab ku degdegay oo hadhow dambana uu ka shalaayo waxa uu ku hadlay. Marka waa inaad barataa inta aad yar tahay inaadan ku degdegin go'aamada, hadallada, jawaabaha, aqbalaada, diidmada oo wax walba aad sameynaysid ka fiirsi badan kadib aad ka jawaabtid ama aad hadal ka bixisid. Casharka 10aad nolosha sida aad rabtid mar walba lagama helo. Noloshu ma ahan mid mar kasta noqota sida aad rabtid. Waa inaad dulqaad yeelataa, qof walba ayaa soo maray xaaladda aad hadda ku jirtid. Waxaan aragnaa mar walba dadka dunida horumarka ka gaaray ama caanka ka ah inay naftaas dhaafiyaan. Sababtuna waa inay nolosha sida ay rabeen ay ka waayaan. Adigu waxaad tahay ruux muslin ah, ma ahan sidooda oo kale inaad samaysid ama xitaa aad ku fikirtid. Waa inaad ogolaataa qadarta Alle oo aad aamintaa inay dunida ay tahay imtixaan, aanay ahayn guriga dhabta ah. ku xirnow Allah kuna qanac wax walba aad hadda haysatid. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay fadlan like saar. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.